habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka inaan ku dhaqmo maxaa hor yaalla madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ee la doortay iyo maamulkiisa uu soo dhisayo warbixin dheeraad ah waraysi iyo falanqayn ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale caawana waxa kamid ah hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray dalka Shiinaha waxa laga shaki qabaa in uu sidoo kale la kulmi doono madaxweyne Trump caawana waxaanu eegi doonaa qalab cusub oo hor leh oo lagu baaro xanuunka kansarka cusub marka uu ku cusub yahay qofka sidoo kale waxaanu idin haynaa wiil yar oo South Africana oo xariif ku ah xisaabta iyo ka shaqaynteeda kala soco BBC News Somali televisionka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa Puntland baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta u doortay madaxweynaha cusub ee maamulkaasi inuu noqdo Saciid Cabdulaahi Dani oo hogaamin doona 5 sano ee soo socota qorshaha madaxweynaha cusub ayaa ka koobnaa 8 qodob waxaana aasaas u ahaa kobcinta dhaqaalaha iyo amniga bulshada waxaana madaxweynaha cusub uu markaasi intii xilligii uu baarlamaanka uu aqrinayay ajandihiisa uu sheegay in uu xoojinayo kaalinta Puntland ee hirgelinta federaalka uuna ilaalinayo maqaamka Puntland oo saldhig u ah in wax la wadaago waxna la kala leeyahay haddaba wafdigii ka socday urur goboleedka IGAD ayaa madaxweynaha cusub ee Puntland waxay ugu baaqeen in uu la shaqeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo isaguna hadlay waxa uu hambaliyay maamulka isagoo oo xusuusiyay ididilada bulshada Puntland ee ku aadan in ay deegaanadaasi u horsadaan amni cadaalad iyo waliba horumar dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ma jirin cid ku matalaysay doorashada taasi oo ka dhalatay in maamulkii Cabdiweli Gaas uu halkaasi ka mamnuucay wufuudda dowladda ee kor kala socon lahayd codaynta inkastoo maanta ay wasiiro ka tirsan dowladda ay gaareen Garowe madaxweynaha xilka ka degaya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu sheegay in Saciid Dani uu istaahilo in Puntland uu hogaamiyo waxaan aaminsanahay in madaxweynaha cusubi uu yahay madaxweyne istaahila inuu hogaamiye Puntland 5 sano ee soo socota kana gudbin kara Puntland caqabadaha maanta hor yaalla waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha cusub inuu dalkiisa iyo dadkiisa uga adeego sida haddaba uu dhaarta ku maray cadaalad hufnaan iyo wadaniyad sidoo kale waxaa madaxweyne ku-xigeenka cusub ee Puntland loo doortay Axmed Cilmi Cismaan oo loo yaqaano Crash oo 2 jeer ka soo qabtay xilal wasiir dowladda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas haddaba wariyaha BBC-da ee ku sugan magaalada Garowe Qalib Baaruud ayaa waxa uu eegayaa caqabadaha uu wajahayo madaxweynaha cusub iyo dowladdiisa markii maanta la doortay madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdulaahi Dani waxa uu halkan ka soo jeediyay khudbad kooban waxa uuna sheegay in laga gudbay xilligii isqa qabsiga doorashada loona baahan yahay inay midoobaan dadka Puntland inkastoo uusan madaxweynuhu ka hadlin arrimaha hor yaalla Puntland haddana waxaa jira 3 arrimood oo muhiim ah oo sugaya xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono kuwaasoo kala ah dhaqaalaha amniga iyo siyaasadda federaalka sida qaybaha kale ee Soomaaliya dhaqaalaha Puntland ma aha mid dabooli kara baahida dadkeeda waxa uu ku salaysan yahay dhoofinta xoolaha iyo ganacsiyada yaryar waxaa madaxweynaha laga sugayaa inuu wax ka qabto dhaqaalaha liita abuurana mashruuciyo shaqooyin waara oo tayo leh sidoo kale waxaa madaxweynaha cusub hor yaalla arrimo la xiriira amniga waxaa qaybo Puntland ka mid ah ka hawlgala ururada Al-Shabaab iyo ISIS iyagoo marar badan ku soo qaada weeraro ciidamada Puntland dhanka kale waxaa jira deegaamo ay ku muransan yihiin Puntland iyo Somaliland kuwaasoo had iyo jeer uu dagaal ku dhex maro labada dhinac waxaa iyaduna xalin u baahan muran siyaasadeedka dhex yaalla Puntland iyo dowladda federaalka ma uusan wanaagsanayn xiriirkii madaxweynihii hore ee Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaana xilligii doorashada laga madnuucay inay ka soo degaan garoomada Puntland mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka
inkastoo uu madaxweynaha cusub ee Puntland hore wasiir uga soo noqday xukuumaddii hore ee federaalka haddana ma cadda waxa ay noqon doonto xiriirka cusub ee u dhaxayn doona isaga iyo dawladda dhexe. haddaba haddii aynu eegno Saciid Dani waa kuma waxaa qaybta wararka ee xarunta BBC-da ku sugan waryahayaga Mawlid Xaaji Cabdi oo aqoon fiican u leh. Mawlid, waa kuma madaxweynahan cusub haddii aanu eegno taariikhdiisa? farxan waa mahadsan tahay. ilaa in ka badan 20 sano ayaan madaxweynahan cusub aqaanaa Saciid Cabdullaahi Dani. marka laga hadlayo horta wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1966 waa 52 sano jir. waxbarashada dugsiga hoose iyo dugsiga sare wuxuu ku qaatay magaalada Muqdisho. heerka jaamacadda koowaadna wuxuu ku galay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. kadibna wuxuu aaday waddanka Malaysia oo waxbarashadiisii uu ka sii ambaqaaday ama ku soo dhamaystay. marka laga hadlayo shakhsiyadiisa runtii intaan aqaanay oo aan la kulmayay ilaa dhowr iyo 10 jeer oo kale wuxuu ahaa nin runtii degan oo aad fahmi karto inuu yahay nin dabeecad furfuran weligii ma arkan isagoo xanaaqsan laakiin qofka siyaasadda markuu galo waa dhici karta inuu isbedelo. shakhsiyadiisa marka laga hadlayana nin ixtiraam badan oo ku xiran dadka magaca leh ee guud ahaan Soomaalida gaar ahaan culimada ganacsatada dadka siyaasiyiinta oo kale qaybaha kale oo bulshada oo dhan nin u siman ayuu ahaa intaan ku aqaanay. marka waxaa soo hadal qaaday inuu bulshada qaybaheeda kala duwan aad ugu xiran yahay gaar ahaan ganacsiga iyo laakiin markaan eegno xagga siyaasadda hadda waa siyaasi oo maamulkan baa loo doortay galaangalkiisa iyo saameyntiisa intay la eg tahay? farxan markaan wax yar ka hadalno xagga ganacsiga horta iyo waxbarashadaba wuxuu hirgeliyay Puntland ka hirgeliyay meelo badan oo kamid ah deegaanada Soomaalida ganacsiyo fara badan shirkado waaweyn ganacsi ayuu ku lahaa lug ama saami ku lahaa xagga waxbarashadana dugsiyo waaweyn oo xagga waxbarashada ayuu kaalin ka geystay hana la yaabin maanta 66 xildhibaan ee baarlamaanka ee doortay qaarkood inay ka soo aflaxeen hay'adii waxbarashada ee gacanta uu ku hayn jiray. xagga siyaasadda markaynu fiirino wuxuu siyaasadda soo galay dhamaadkii 90-yadii laakiin 2012 ayaa loo doortay xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka 8aad ee magaalada Muqdisho. 2014 wuxuu noqday wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga ee dawladda federaalka Soomaaliya. wuxuu kaalin ka qaatay shirkii la oran jiray New Deal ee Brussels Soomaaliya iyo Midowga Yurub. marka xagga siyaasadda markaad fiirisid ololihiisa ayaa waxa la oran karaa siyaasadiisa iyo khibradiisa iyo dhaxgalkiisa bulshada waxay keentay in inta badan uu ku guuleysto gaar ahaan ololaha uu sameeyay. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mawlid Xaaji Cabdi. waxay noo soo socday waliba falanqeyn kale oo ku saabsan xiriirka Puntland iyo dawladda dhexe. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay wax aan la aqbali karin hadalka uu yiri la taliyaha dhinaca ammaanka ee Mareykanka oo ahaa in la ballan qaado ammaanka dagaalyahanada Kurdiyiinta ee ku sugan Suuriya. Mr. Erdogan ayaa yiri in John Bolton uu soo jeediyay in Ankara ay ogolaato amniga Kurdiyiinta Mareykanka uu taageero waxay ahayd qalad weyn. Bolton ayaa iminka ku sugan magaalada Ankara isagoo oo socdaal ku maraya gobolka. booliiska Beijing ayaa sheegay in 20 caruur ay ku dhaawacmeen kadib markii nin uu ku weeraray dugsi ay ku sugnaayeen. 3 caruur ah ayaa dhaawacyo culus ay soo gaareen inkasta oo la sheegay inaanay noloshoodu khatar ku jirin. muuqaal video oo loo malaynayo in dugsiga uu leeyahay ayaa waxa ka soo muuqday macallimiinta oo waalidiinta u sheegaya in qof dugsiga ka shaqeeya uu weerarka qaaday. aynu dib ugu laabanay arrimaha doorashada Puntland. madaxweynahan cusubi waxa uu yahay iyo caqabadaha hor yaala si aan u sii falanqeyn waxa stuudiyaha ila jooga Maxamuud Axmed Cabdalla oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha gobolka. waxa hor yaala markaad eegto intay la egyihiin iyo caqabadaha gobolka ka jiraba? farxan marka hore ku salaamaya hadiyo shaqaalaha BBC insha Allah. waxaan marka hore rabaa inaan u hambaliyo madaxweynaha cusub ee la doortay Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Crash. hambaliyada kadib sida caadiga ah xukuumad markay xukuumad bedesho waxyaalaha hor yaala oo la oran karo way hor yaalaan waa laba qaybood bay u kala baxaan. qayb waxa weeye wixii ay ka dhaxashay xukuumadii ka horeysay qaybina waxa weeye waxa marka cusub soo kordha. haddaan toos u abaaro Puntland madaxweynaha la doortay hadda waxyaalaha ugu muhiimsan ee hor yaala waxa weeye amni. arrin amni oo runtii qaybo kala duwan oo kala baxda
sida joogitaanka al-shabaab ee yacniga gobolka silsilada golis ama buuraha almadow arrinta tukaraq maxaa la oran karaa tababar la-aanta ciidamada ma garanaysaa Puntland oo arrin maartay aan laga salgaadhin iyada lafteedu ah waxa kamid arrimo dhaqaale ayaa jira oo matalan heshiisyada matalan dekada Boosaaso oo kale ayaa kamid ah caqabadaha horyaalla waan gartay marka waxa soo dhan aad sheegaysaa caqabadaha oo mid xiriirkan wax ka weydiin doono dawladda dhexe federaalka ah nin u babaqdhigi kara ma yahay oo isbedel weyn samayn kara deni anigu aqoon gaar uma lihi laakiin taariikhdiisa aad baan ku dhuuntaloolaa dad yaqaana baan ku xidhanahay waa nin runtii horaantii sagaashamiyadii sida dad badan oo lagu kalsoonaan karo ay ka hadlayaan wadanka soo shaqeeyay gaar ahaan qaybta waxbarashada wasiirna hore uga soo noqday planninga ama qorsheynta dawladii Sheekh Shariif taa marka hadaan galno dawladda dhexe waxaad ogtahay in loo diiday oo maanta uu la yiri waad iman kartaan Garowe xiriirka uu la leeyahay Muqdisho ay dadku isweydiin karaan arrimaha aad iyo aad isha loogu hayay arrimahaas ka mid yihiin Puntland inay siyaasad qeexan kula dhaqanto dawladda federaalka wad garanaysaa farxaan oo khilaafka Puntland iyo soo noqnoqonaya dawladda federaalku intii muddaba ah waxa aad looga rajo qabaa in Saciid Cabdullaahi Deni uu arrintaas kula dhaqmi doono siyaasad furfuran oo xagga dhanka federaalka iyo run ahaantii dhanka arrimaha gudaha intaas oo dhan baa la filayaa marka inuu kula dhaqmi doono nacam aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Axmed Cabdalla oo ka faaloonaya arrimaha Puntland wali waxaan soo socdaa qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan wiil yar oo South Africana oo xariif ku ah xisaabta iyo waliba qodobo kale wali waxa daawanaysaa barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale bal aan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn waxaan ku dhaaranayaa maxaa hor yaalla madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo maamulka uu soo dhisayo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo gaaray dalka Shiinaha waxa laga shaki qabaa inuu sidoo kale uu la kulmi doono madaxweyne Trump waxaan ku bilownaa wadanka Kuuriyada Waqooyi boqosho aan la shaacin ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu ku tagay Shiinaha iyadoo oo uu shir madaxeed la yeelan doono hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping waa kulankii afraad ee labada hogaamiye dhexmara boqoshadan ayaa waxa imanaysa iyadoo la hadal hayo in kulan madaxeed uu dhexmari karo Mr Kim iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Shiinaha ayaa hadaba wax la sheegayaa in xulafo dhow oo xagga diblomaasiyadda ah uu leeyahay Kuuriyada Waqooyi isla markaana ay meel ay u tahay ganacsi iyo kaalmaba ay ka helaan Kuuriyada Waqooyi Kim waxa uu booqday Shiinaha 3 jeer xeelarayaasha siyaasadda gobolkan waxa ay sheegayaan in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso in ay Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureedba ay tusto in ay leedahay saaxiibo kale warbaahinta dawladda Shiinaha ayaa sheegaysa in Kim Jong Un uu Shiinaha joogi doono ilaa iyo 10 bishan January waxaana la socota xaaskiisa Ri Sol Chu iyo madax kale maanta waxay ku beegnay 35 guurada dhalashadiisa Mr Kim inkasta oo weligeedba Pyongyang aanay sugin maalinta uu dhashay wariyaha BBC da John Sadworth ayaa tafaasiisha haya
waqtiyadii hore booqashooyinkan oo kale waxay ahaan jireen qaar aad loo qariyo waxaa dhacday in booqashooyinka mid ka mida aan laba sheeginba ilamaa iyo Kim Jong-un uu dib ugu noqday dalkiisii laakiin imika waxaad moodaa in booqashadani ay ka duwan tahay kuwii hore warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Shiinaha iyo ta Kuuriyada Waqooyi ayaa labaduba sheegay in booqashadan uu ku iman doono hogaamiye Kim Jong-un waxa kaloo aanu arkaynay in tareenkiisu ka soo tallaabay xadka labada dal u dhaxeeya waxaan ognahay inuu imika joogo Peking waxa kaloo jirta in aanu arkayno sawirada iyo muuqaalada laga soo duubay iyada oo kolonyadiisu ay marayaan dariiqyada waaweyn ee magaaladan ee Peking waxa kaloo jirta oo ay tahay inaynu iyaduna ogaano inaan hogaamiyahani 6 sanadood ugu horeysay ee uu xukunka hayay aanu wax booqasho dibadda ah sameynba laakiin imika waxaanu arkaynaa inuu sanad gudihii markii afraad soo booqanayo dalka Shiinaha khudbadu jeediyay sanadka cusub Kim Jong-un waxa uu sheegay And yet at the same time we've got Donald Trump in uu ka soo dhamaanayo samirkii iyo dulqaadkii uu hayay mowqifka Mareykanka dhanka kale waxaynu maqalay in Donald Trump uu isagu leeyahayba shir madaxeed ayaanu isugu imananaa waxa jira dabcan warar badan oo la isla dhex marayo iyo halka shirkaas ku qabsoomi doono su'aalaha la isweydiinaya waxa weeyaan sida Shiinuhu ay u sii adkeyn karayaan culayska ay saarayaan Kuuriyada Waqooyi gaar ahaan xagga cunaqabataynta dhaqaalaha keeping the pressure on and enforcing those sanctions. bal markana aynu eegno xagga caafimaadka ee cilmi baarayaasha ku xeel dheer caafimaadka ayaa tijaabinaya qalab cusub oo lagu neefsado oo dabadeedna la sheegaya in lagu ogaan doono xanuunka dadku inta badan ay u dhintaan ee kansarka qalabkaasi ayaa waxa loogu talagalay in uu neefta qofka bukaanka ah marka laga qaado ay ka heli karaan calaamado muujinaya marxaladaha ugu horeeya ee qofku marka uu hayo cudurkan dalkan Britain kala bar dadka qaba cudurka kansarka waxa la ogaadaa marxaladaha dambe marka ay gaaraan oo xaaladoodu ay liidato mid kamid ah hadaba dadka aasaasay shirkadda la yiraahdo Billy Boyle oo ah shirkadda soo saaraysa qalabkan ayaa xaaskiisa waxa uu dhimatay xanuunkan kansarka ah iyadoo jirtay 36 sano wariyahayaga Maxamed Xaraare ayaa faafahinta noo haya tijaabinta neefta ahi waxay u muuqataa mid sahlan ha yeeshee waa mid xasaasi ah fikraddu waa in dadka bukaanka ahi ay neef ku sii daayaan muddo 10 daqiiqadood ah kadibna tijaabada ayaa baaritaan dheeraad ah oo la xiriira unugyada kansarka qaba laga eegaya waxyaabaha yididiilada leh ayaa ah in baaritaankan loo adeegsan karo noocyada kala duwan ee kansarka waxaa dabadeed sahlanaanaysa in si degdeg ah loola tacaalo bukaanka oo loo helo hanaan lagu daweyn karo isla markaana si kor loogu qaadi karo fursadaha badbaadada Rebecca Coldrick waa mid ka mid ah dad gaaraya 1500 oo qof oo gacan ka geysanaya in qalabkan la tijaabiyo. labadii sanaba baaris ayaa lagu sameeyaa iyadoo dhuunta laga geliyo kaamira lagu eegayo. sanadihii tagay waxaa la igu sameeyay ilaa 10 baaris waxa igu soo kordhay walwalka iyo cabsida aan ka qabo baaritaanadan inaan helo baaris sahlan waxay ii noqonaysaa mid aad u wanaagsan marka laga reebo baarista kansarka ee loo adeegsado dhiigga iyo iskaanka ee iminka jira inta badan waxaa la isticmaalaa baaritaano howl badan oo adag hay-adda cilmi baarista kansarka ee Britain ayaa sheegtay in tijaabadani ay sahli doonto in kansarka la sii ogaado kal hore taa oo muhiim u ah in la yareeyo kobciisa dadka qaba kansarka kaadhaysta waxa ay noolaan karaan ugu yaraan 1 sano haddii hore loo sii ogaado xanuunkooda laakiin haddii xilli dambe la ogaado marka uu qofku gaaro marxaladda afraad ilaa 33% ayay tirada badbaadadu hoos u dhacaysaa kansarka calooshana haddii hore loo sii ogaado waxa ay bukaanka siinaysaa fursad uu ilaa 5 sano ama ka badan ku sii noolaado laakiin haddii aan iyana hore loo sii ogaan si weyn ayay hoos ugu dhacaysaa habkan tijaabada neefta ayaa ah mid weli cusub laakiin kooxda ka dambaysa fikradiisa ayaa sheegaysa in haddii uu shaqeeyo ay suurtagal tahay in sidoo kale loo isticmaalo cudurrada kale waa tahay markan waxaanu eegaynaa caawa iyo ciyaarihii dhinaca iyo wadanka markaynu eegno qaaradda Afrika Masar ayaa waxay noqotay dalka marti gelinaya koobka qaramada Afrika ee kubadda cagta ee sanadkan 2019 waxay ku guuleysteen oo ay ka guuleysteen dalka Koonfur Afrika kadib markii ururka ay sutaga xiriirka kubadda cagta ee Afrika ay cod uga qaadeen Cameroon ayaa qorshuhu ahaa inay marti geliso koobka qaramada Afrika laakiin waa laga wareejiyay kadib markii la arkay in aanay diyaar u ahaynba inay marti geliyaan ciyaarahaasi
caawana waxaa lagu dhawaaqayaa abaalgudka ururka isutaga kubadda cagta ee Afrika ciyaaryahanka Maxamed Salah oo ka tirsan kooxda qaranka ee Masar oo sanadkii hore ku guuleystay abaalmarintan ayaa kamid ah dadka liiska ku soo haray sidoo kale Sadio Mane oo Senegal u dhashay Maxamedna ay wada ciyaaraan naadiga Liverpool iyo ciyaaryahanka kale ee Pierre-Emerick Aubameyang oo Gabon iyo Arsenal u dheela ayaa kamid ah magacyada liiska ku jira tababaraha naadiga kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu sheegay in aanu ka shalaynaynin in kooxdiisa isbedel ku sameeyay 9 jeer kadib markii kooxda Wolves ay 2-1 ay kaga badisay wareegii saddexaad xalay koobka FA-ga 11 ciyaaryahan ee kooxda Liverpool ciyaarta u bilaabay waxa ku jiray 2 ciyaaryahan oo da'doodu ay aad u yarayd bal markana shaka cajiib ayaynu idin haynaaye wiil yar oo 10 jir ah oo u dhashay wadanka Koonfur Afrika ayaa caalamka oo dhan gaar ahaan dadka xisaabta ku xeel dheer aad ay u hadalhayaan oo markaasi ka yaabiyay Shibahle Zawein wuxuu awood u leeyahay inuu xaliyo mucaadalooyinka waaweyn xisaabta oo si dhaqso badan oo waliba madaxiisa uga jawaabayo ayaa waxay ka dhigtay inuu wiilkan yarka ah ee 10 jirka ah uu caan ka noqdo baraha bulshada Aisha Afrax ayaa inaga waramaysa Welcome to Maths casharka ayaa socda iskuulkan ayaa ardaydiisu ay aad ugu dadaalaan maadada xisaabta laakiin hal arday ayaa ka dhex muuqda 5 la kulan Shibahle Zawein wuxuu caan ku yahay xirfadiisa xisaabta waana 10 jir Anyone who knows the answer Shibahle 540 iskuulka oo dhan aniga ayaa xisaabta ugu badiya dadkuna inaan wax u xisaabiyo ayay i weydiistaan si ay ii imtixaamaan wayna ama kaagaan markaan jawaabta saxo dadka qaar ayaa lacag siiya marka aan xalliyo hooyaday ayaana siiya lacagtaas waxaa Shibahle hibadiisa la ogaaday marka uu nin booliis ah uu muuqaal ka duubay 2750 inkastoo hooyadiis aysan ka caawin karin casharadiisa haddana waxay tahay taageerihiisa ugu weyn waxay tiri wuxuu leeyahay yidiilooyin waaweyn waxaan rajaynayaa inay u wada rumoowaan wuxuuna jecel yahay inuu xalliyo caqabad kasta marka waan imtixaanay Shibahle 78 ku dhufo 550 42 milyan iyo 900 kun wow sidee maskaxdaadu u keentay jawaabta Hello Shibahle kadib qiimeyn waxaa loo aqoonsaday inuu yahay canug hibo u saaxiiba laakiinse iyaduna waa mid dhibaatadeeda leh dhaqso ayuu daalayaa wuxuuna u baahan yahay hab ka duwan carruurta kale in wax loo baro Professor Belinda waa madaxa naadiga xisaabta ee jaamacadda Wits waxayna doonaysaa inuu qayb ka noqdo naadigeeda uuna la tartamo dadka ugu dheereeya xisaabta dunida Belinda waxay tiri haddii aan hadda la kobcin maskaxdiisa wuxuu iska noqon doonaa sida ilmaha kale oo kaliya oo muqarrarka waxa ku yaala uun bartaa hadda Shibahle waxa uu ku biiray barnaamijka carruurta hibada leh wuxuuna fursad u haystaa mustaqbal wacan Shibahle waa uu dhaafay xariif waa xisaabiye oo tahay mar walba waxaad nagala socon kartaan bogayaga BBC Somali Facebook fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo kala duwan falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba waxaad ka daalacan kartaa oo aad booqan kartaa bogayaga BBC Somali Twitter iyo waliba Instagram ugu dambeyntiina waxaanu idiin haynaa siyaasi aan inta badan qoyskiisa ka dheeraanin Gavin Newsom oo ah gudoomiyaha cusub ee gobolka California ee wadanka Mareykanka ayaa isagoo khudbadii xilka uu kula wareegayay jeedinayay mar qura iyadoo la filayn qof baa soo galay masraxa wuxuu ah wiil yar oo dhalay oo 2 jir ah oo masraxa biis isagoo hadlaya soo galay ilaa ugu dambeyntii hooyadii iyo walaalkii oo ka weyn ay qabteen oo ay ka jiideen oo ka kaxeeyeen masraxii aabihii oo khudbada ka jeedinayay marka qoyskiiba halka ku wada dhamaa waa tahay daawadayaal waxaad mar walba xusuusanaysaa in wararka ugu dambeeyay aad ka heli karto bogayaga bbc.com/Somali
inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka caawiya caalamka waxa barnaamijkan haddii idin dhaafay mar walba aad kala socon kartaan bogayaga bbcsomali.com waad ku mahadsantihiin daawashadiina nabadgelyo